weliba aad waxaan uga baryaynaa culummada muxuu ahaay kitaabka ay aqrinayaan inay runta ka aqriyaano ayna dhihin haweenku guri waayo meelay qur-aanka uga qoran tahay annaka ma arkin haweenku guri waayo hadday ku qoran tahayna waa noo micnaynayaan waana u dambaynaynaa waa noo sheegayaan laakiin bini aadamku waa isku hal ilaahay nus iyo ma abuurin qof buuxa xaawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto waa dad uu ilaahay wada abuurtay uu wada sameeyey dad wada simanaan nahay waxyaabo dhaxalka ah weliba dhaxalka hal qaybaa lasoo qaatay dhaxalku qaybo badan uu leeyahay taas diinta waa idinla soo baranaynaa markaasaa idinla doodaynaa sheekh cali gujisi iyo anigaa halkaa istaagi doono oo ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waa ku mahadsan yihiin ilaa iyo hadda intay noo soo dadaaleen ay noo soo shaqeeyeen doodo badan aan ka wada qayb galnay runtii ay haweenka iyo xaqooda ay ku ilaalinayaan waxaan rajaynayaa inay taas ay sii wadaan marka ugu horeysa diinteena islaamku Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin rag iyo dumar waa wada abuuriyay aadam alayhi salaam markuu abuurana in laga abuuro feertiisa bidixda ah xaaskiisa sida diintu ay qabto oo aan ahayn wax la iska sheegay walaasheen inay waa mutacallimada inay dib u akhriso maraajicda islaamka aan rajaynahay waxa waa qiimeyn la qiimeynayo gabadha iyo wiilka waxa ka dhaxeeya inay walaalo yihiin oo hal cad ay wada yihiin ilaahay waa awoodiyay inuu makhluuq kaleeto oo jinsi kala oo inta abuuro oo haween uga dhiga aadam laakiin halkaas waxa laga abuurayay sida ayduba ay sheegayso Allah subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu noogu sheegay qala ta'ala Allah wuxuu yiri ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها آيات أن ربنا توريشة يوجد القرآن في كتب وتاس وجعل بينكم مودة ورحمة الله إنه كأبور النفط آدم لفت هذا حاس كيسي أيو شاغي سدح وجد أيانا لو يعربوا يري سدح وجد نوامد اللي بهاي ما أنت إن إلى لنا إن ما دام إسكو إسري هنا إسكو مالك ودي من إن نفط كلا ودكتو لتسكنوا إليها واللي بقى واحد السي ماشي اللي ودقة يهوان كالقدق maxay la haweenku ragga waa ka muhiimsan yihiin xagga deganaanshaha iyo guriga isku xirnaanshadiisa ninku haddii uusan xaas haysan ma degana guriguna wuxuu ku dhisan yahay waa gabadha marka litaskunu ilaaha macnaha si faa'iideynaysa markaasoo Allah markuu taas gabadha ku qiimeeyay si gaara ayuu yiri waja'ala tan dhexdooda dhigay bartanku dhigay maxay hal qof ma keeni karo waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma wuxuu dhexdiina dhigay buu yiri oo qof walba raba inay xeediso ilaaliso kalgacaltooyo iyo isu naxariisasho horta ragga dumarka taas ka dhaxaysa Allah abuuray baa dhex dhigay inay isku deganaadaan isjeclaadaan isu naxariistaan ee wax colaada ka madaxayaan taas midda koobaad waay waxaan saxay xogo erayga yaraayo doctoreysada ana aad u qiimeynaya xalimeeray waxay ka mid tahay dhaxalka ugu qiimaha badan loo Soomaaliyeed ay leedahay qof aqoon-yahana oo qiimo gal ah oo waxtar ah oo geesiyada waay rag iyo dumar badan ay wax badan dheertahay marka haddana Agreement waxay ku daafurtay adeegyada xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE